Ku soo dhawaada magaalada Venezia oo ka mid ah magaalooyinka ugu quruxda badan ku tahayna waxaa la yidhaahaa Venezia. Magaalada Venezia waa magaalo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn, uguna caansan, uguna dakhliga badan, uguna dalxiiska badan waddanka Italiya. Waa magaalo ka kooban laba qaybood oo ra'iisi ah: Venezia Mestre iyo Venezia San Luca. Venezia San Luca ayaa waxay u qaybsantaa qaybo aad u fara badan oo jasiiradooyin ah, oo iyaguna ah goobo ay isku xidhaan doomo yaryar oo loo sameeyay kanaallo dabiici ah iyo kuwo ay gacan ku samayso labadaba. Kanaan taaganahay waa kanaal gacan ku samaysa oo magaalada dhexdeeda mara. Magaalada waxaa ka shaqeeya doomo, saan hore u sheegay. Doomahaas oo kala qaybsama kuwa rakaabka, kuwa xamuulka, kuwa gaadiidka dadweynaha, iyo kuwa ambalaasta iyo kuwa booliska. Wax walba oo meeshan ka shaqeynaya waa doon. Magaaladan waxyaabahan ku arkay iga yaabay waxaa ka mid ah guryuhu waa cidlo, hoteelo yaryar iyo dad lug ah mooye. Guryo la degan yahay aad bay u yar yihiin, maadaama ay tahay magaaladu magaalo qadiimi ah, baddu ay ku xeeran tahay, ilaa iyo jasiirado aad u fara badan oo ilaa dhowr iyo toban gaari ay ka kooban tahay. Haddana magaaladu waxa ay aad u soo jiidataa indhaha dalxiisayaasha. Guryo qadiimi ah ku yaalla, dhul waxaa ku yaalla run ahaantii aad is leedahay dadka halkan dhisay maxay ahaayeen. Waa magaalo dhinac ay carabta ka gumaysatay, dhinac Turkidu ka gumaysatay, dhismooyin kala duwan soo martay. Tramka magaaladan waxaa iga yaabiyey hal lug ayuu ku shaqeeyaa. Tramka magaaladan wuxuu leeyahay hal lug ah keliya. Waxyaabaha aadka iga cajaabiyey bay ka mid ahayd in tramkoodu tram yar oo qurux badan oo kooban uu yahay, haddana hal lug oo ku shaqeynaya. Run ahaantii ku laba lug oo ma arki jiray Milano iyo magaalada Torino. Waxaan ku arkaa tram ama tram hal lug oo laba lugood ku shaqeynaya, laakiin kan hal lug ayuu ku shaqeeyaa. Waa waxyaabaha aadka iga yaabiyey. Magaalada aad bay u qurux badan tahay. Baabuurta, tareemada iyo waxaas oo dhan halkan ay ku ogyihiin. Buundadan ayaa ugu dambeysa. Wixii buundadan laga bilaabo waxaa la gelayaa dhul ay ka shaqeynayaan doomo yaryar, kuwo waaweyn, kuwo sida basaska u samaysan, kuwo ul lagu wado, kuwo mishiin lagu wado, xataa waxaad arkaysaa kuwo otomaatig iyagoo is wada oo aad saacad un ku buuxinayso. Boolisku waxay wataan doon, dabdamisku way wataan doon, ambalaastuna doon bay wadataa. Magaalada dhan doon ayaa u shaqeysa qaybaheeda kala duwan. Venezia waa magaalo aad u qurux badan. Baashan yar ee doonta ah aad bay qaali u tahay, waa la isku gaadaa. Hal wareeg buu kusoo wareejinayaa, 9 euro ayaa laga tirsanayaa. Aniga waxaan 10 daqiiqo gaadhin ayaa 9 euro laga qaadayaa. Doomaha noocaas aad bay qaali u yihiin. Haddaad magaalada ku cusub tahay, waxba ha isku fuulin, cagtaada maal. Magaalada ceebta kaliya ay leedahay waxaa ka mid ah in tuwaaladku ku yar yahay. Haddii intaad gudaha u gasho aad doonna weydo, gaadhina weydo, run ahaantii way adag tahay saad meel banyo ama tuwaalad aad ku hesho, musqul aad ku hesho aad iyo aad bay u adag tahay. Waana waxyaabaha ceebta ay ku leedahay ee magaaladani aan ku dhaleeceyn karno kaligeed. Xagga dalxiiska iyo isha iyo run ahaantii inaad xadaarado kala duwan waxaad arkaysaa guryihii carabta, boqoradii carabta ay dhiseen oo kala duwan. Asalaamu calaykum.